السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن داوديال ميلو بودوني دافيد أنك داونيسان halkan oo bartaan kulana YouTube-keena Family Lifestyle. Haddii ay tahay booqashada ugu horeysay waxaan si naxariis kalgacal walaalnimo ku dhiganta kaaga codsanayaa maanta inaad nagu soo biirto channelka subscribe inoo saarto gambalelka on ka dhigo muuqaalada update-kan halkan soo gelino si sanaba ku dhaafin. Haddii aad hor noqo mid waxaan si xushmad la kaaga codsanayna muuqaalka mar allaala markii uu soo gaaro inaad lacagtiisa u saarto si uu baaho intuu badan bulshada Soomaaliyeed u gaaro. Daawade ma aaminsan tahay qof dhintay oo la daahiriyay ee karfan loo xiray ee qabriga la geeyay haddana soo noolaaday. Haddaba waxaan halkaan idinku hayaa mid ka mid ah ragga sida gaarka uga shaqeeyo qodista qabriyada oo halkaan muuqaal la yaab leh amba sheeko la yaab leh halkaan inagula wadaagay. Waxa uu yiri nin ayaa soo dhintay kadib waa la soo karfanay waxaa la keenay qabuurihii kadibna waxaa la bilaabay in lagu dukado salaad janaasada mar allaala markii uu imaamkii salaada janaasada uu xirtay oo takbiirtii koobaad uu yiri Allahu Akbar tii labaadna uu rabay inuu yiraahdo ayaa mar kaliya waxaa sara kacay ninkii meedka ahaa oo hortooda dadkii yaalay ee salaada janaasada lagu dukanayay ayaa istaagay. Haddaba waxaa halkaasi ka dhacday in qof walba oo halkaasi taagnaa haddii uu ahaa ehel haddii uu yahay qaraabo haddii ay yihiin asxaab iyo Soomaalinimo islaamnimo u soo raacay midkaasi bal inay ajir ka raadsadaan ayaa mar kaliya waxaa ka dhacday kabtidii ma aragteen iyo qof walba inuu jihadii markaas u dhow uu inta u jeesto oo cararo. Haddaba ninkii meedka ahaa ayaa waxaa la sheegayaa asagana inuu inta istaagay kadibna uu bilaabay inuu karfantii uu ku xirneed uu ka dhex baxo asagoo sidii hooyadiis ku dhashayna cagta wadada saaro. Waxaa ka hor yimid oo meel sidaas uga dheereen taagnaa nin reer mii ah oo watay go' shaal ah. Haddaba ninkii ayaa wuxuu bilaabay inuu ku boodo ninkii reer baadiyaha ahaa kadibna shaalkii uu watay iyo shaarkii uu watay ayuu isku qabsaday. Ninkii ayaa wuxuu bilaabay inuu ku qayliyo war aniga dadkaani lama soconin ee waxaan ahaa qof socoto ah laakiin soo maray halkan. Ninkii waxa uu ka qaatay asagoo oon hadalkiisii dhageysanin shaalkii uu watay kadib wuxuu bilaabay bal inuu cooradiisa ku asturo kadibna halkaasi uu ka sii wado kana sii ambaqaado cararkiisii. Bal waa kan muuqaalkii oo aan jecelahay inaan si wada jira halkan aan uga daawano. nin baa jiray oo sidoo halkaa lagu tukanaya sare kacay oo markii sheekhu Allahu Akbar yiri ee takbiirtu horeysay xidhatay labaad Allah soo wato sare kacu Allah sheekhina kaga ligtay marka meedkii baaba istaagay way taasoo kala yaacay sawir bal naga sii dadkii meesha joogay xaaladdu sida ahayd marka xaaladdu waxay ahayd dadkii jamca meedkii ku tukanayay odagii meedkii masara kaco imaamkii Allah ma kaga ligtay dabeetu waa la yaacay kayntaasa la yaacay ninkii qaawino ka daba carray way umariye ka fatay iska reebay way dabeetu odagii oo saara degta ku sitay ayuu deeg kalarka saa soo qabsaday way isagoo go'a ka qaadaya way dabeetu waxay noqotay shaarkii u soo raaco way in odagiina yidhaaho adeer anigu waxba lama socon halkan ma ka soo raacay way anigu lama socon halkan ma ka soo raacay way odagii lamu dagaalamayna goy buu ka qaato uu guntaday halkii uu dadka ka daba cararayay magaaladii halkuu cararayay halkuu laga soo qaaday uu cararo. daawadayaal waan filayaa inaad muuqaalkaasi aad ka bogateen oo aad daawateen sida ninka uga sheekeynayo ninka qabriyada qoda. Waxa uu yiri ninkii waa uu cararay sidaas ayuuna ku tagay. Haddaba ma aaminsan tahay qof dhintay inuu soo noolaan karo? Haddaba waa maya. Qofkii dhintaa ajashiisa meeshaas ayuu ku dhamaatay oo adduunyadii ayaa ka dhamaatay waxaana u bilaabanayso daartii aakhiro. Haddaba taa waxay ku cadeynaysaa ninkaas inuu markii horeba ahaa nin aanan dhimanin laakiin ahaa mid suxsan adduunyadana ay wax uga harsan yihiin. Haddaba waxaan rabaa inaan halkaasi muuqaalka ku soo afmeero. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay booqashada ugu horeysan waxaan ku xasuusinayaa inaad maanta nagu soo biirto channelka subscribe inoo saarto muuqaalkana like saarto asxaabtaadana la share gareyso.
muuqaalkan muuqaalka xiganta kulmi doono